haddii aad aragta gabadhaada oo daawanaysa kuwan ul inta qaadid nasliga ka saar meesha laftay taagta jabi wala hatta islaantaada oo daawanaysa daaratid jabi sababta sidaa walaay maxay tahay nimankan horta nimankan naaga u eg nimankan dharka maxaa ku sheegaa manina ama sawaa naag waxay yihiin ma qaane hadii ilaahay ku imahayo gabdhaha Soomaaliyeed aad u daawada way jecel yihiin oo ma qaana wax ku jeclaadeen ma qaabkooda kale u dhaqmaan ma qaane sida u jilacsan yihiin sidoo kale make up ka marsadaan ma qaane aad u jecel yihiin hadda kuwa commentiga wax kugu soo qorayaan maxaa ka rabtaa fiiska ka soo galay maxaa nimankan waa ku naxsantahay hebelow horta nimankan waa fanaaniin Kooriyada Koonfureed inay ku soo jeedaan baa maleen adu waa Kooriyaan waa fanaaniin afka Ingiriisiga bay ku heysaan waa koox adu dhowr mar qaar 9 bay gaaraan 8 bay gaaraan 3 afar adu waa kooxba marba sii noqda marba sii soo qaada hadda laba kamid ah ayaa hees soo qaaday heesta ay soo qaadeen waxa la yiraahdaa bad religion ama maxay diintii xumeed haddaba ma isweydiisay diinta xun ay ka hadlayaan diinta xun oo ay ka hadlayaan oo nimankan soo qaadanayaan oo ay leeyihiin way xun tahay waa he diinta islaamka marka gabadhaada oo daawanaysa hadda aragtid tun haddaba waxa isweydiinaysaa maxay nimankan diinta islaamka ka sheegeen erayada ay dhaheen aad bay u xun yihiin u kala xun yihiin laakiin inta kale waa kabaa'ir waaweyn waaye bal intaan uu yar oo tilmaanta ay bixinayaan bal horta asla fiirino. He said, Allahu Akbar. I told him, don't curse me. Bo, you need prayer. I guess it couldn't hurt me if it brings me to knees. It's bad religion. muxuu yiri wuxuu ugu yiri Allahu Akbar. He said, Allahu Akbar. Allahu Akbar ayuu ugu yiri wuxuu leeyahay aniguna waxaan ugu jawaabay hay caay. I told him, don't curse me. bal ninka hadda qanxumadiisa fiiri wuxuu ugu yiri Allahu Akbar anna waxaan ugu jawaabay hay caay u fiirsaya wuxuu ugu yiri waxaad u baahan tahay duco. Bo, you need prayer. waxaan ku yiri hadiiba ay ugu baahan ducadaas ugu qasbaysaba inaan jilba dhigto si ducadaas lagu aqbalay macni I guess it couldn't hurt me if it brings me to knees. marka hadiiba ay ugu qasbaysa inaan jilba dhigto oo ay ugu kalifayso ama ugu keenayso inaan jilba dhigto taasi waa diin xun. It's bad religion. yahay muxuu la jeedaa diinta islaamka marka la dukanay maxay waa la sujuudaa Soomaa jilbaha soo dhulka ma tagayaan Sooma jilba jabsanaysid Sooma sujuudaysid soo gacmaha dhulka ma dhigaysid soo farahaaga qaybta hore dhulka ma dhigaysid soo jilbahaaga ma dhigaysid soo sujuudada dhulka ma dhigaysid wuxuu leeyahay soo hadiiba ay taa igu kalifayso inaan ducadaas helo oo aan dukado hadiiba taa igu keenayso macnaheedu waxay tahay diinta waa diin xun. I guess it couldn't hurt me if it brings me to knees. It's bad religion. waa sida hadda uu leeyahay fiiri marmale socota wuxuu ugu yiri Allahu Akbar meenis wuu adimay fiiri wuu adimay. He said, Allahu Akbar. warka ma socota fiiri meesha hadalku meesha u dhacayo wuxuu ugu yiri Allahu Akbar wuu adimay waay macna marka waa soo istaaga banaanka mar ugu yiri maxaa oraanay caayin maxaad sheegaysaa. I told him, don't curse me. because they maxaad sheegaysaa markaas wuxuu ugu yiri kaale duko. Bo, you need prayer. maxana hayya ala salaad hayya ala falah war kaale salaada u kaalay buu ugu yiri bal fiiriya adinkiiba uu leeyahay oo macnaynaya markaas baa ku yiri I guess it couldn't hurt me if it brings me to knees. hadiiba ay u kalifayso salaada aad ugu yeerayso inaad jilbahayga dhulka dhigto taas waa diin xun. It's bad religion. diinta aad ugu yeerayso waa diin xun sidaas buu leeyahay marka ninka sidaa u hadlay ee sidaa ku soo heesay oo diinteena yiri waa diin xun meel socda diinteena yiri waa diin xun gabadhaada hadoo daawanaysa ka war ay taageerayso ee taleefanka shaashadiisa u saaran yahay ee profilka u saaran yahay waa fasahaad way caruurtu inta aysan qaan gaarin ka hor waa inta maskaxdooda wax record garayso qaar waxa lagu leeyahay war heesto ma ahan bay heesto hees jacayl weeye heesto hees jacayl weeye afka hore jacayl lagaaga dhigay waxba hore lagugu suugay laakiin gadaal maxaa ka jira waxa ku dhex jira meeshan hay waa hees dhan oo loo soo horjeeda adinkii marka waxa arkaynaa hadhow caruur marka wadaadku adimo Allahu Akbar yiraahdo soo dhihi doona he don't curse me intuu balkoonka soo istaago don't curse me wadaado waxaasay rabaan inay hadhow challenge noo dhigaan oo hadii ay ku idmaayo hadhow reerahana soo dhaxgeliyaan waa weerar aa u jeedo waa adinkaagii hala dhaleecay hay fiir wadaadkii baa ii yeeray Allahu Akbar buu ugu yiri warkaan ku yiri war caayiro maxaad sheegaysaa markaa baa ku yiri war kaala duko war salaado ima u duko markaas baa ku yiri hadiiba jilbahayga dhulka dhigayo taa waa bahdilaad sida darteed diintaasi waa diin xun aad ugu yeerayso marka gabadha marka taawanaysa ee gurigaaga joogta tun ulay tijabi laftay taagta jabi gabadha ma maqlaysaan wax kale oo la taageeraa badan wax kale oo la daawadaa badan kuwaas waa fasahaad bil cali fasahaad weeye waa in taleefankaaga ka tuurto waa inaadan daawan waa inaadan taageerin ma fahanti